gabadhaana meesha baragtikoolka ka ayaa soo bixaysa waxay umaanaysaa saddexda nin waxay ku leedahay ninkan soo istaag markuu soo istaago waxay arkaysaa ninkan inuu gacan la-yahay markaas ayay ka aamusaysaa waxay leedahay adiga ma ahan ninkan kale ayay ku leedahay adiga waa in aad isoo raacdaa ninkani gacanta la ayaa dhahay marwa maxaa dhacay ninkan aniga ayaa kasoo horey waxay mudnaanta in aniga lee hormarsiiyo gabadhaana ayaa dhehayso maya taasi dhib malaho adigan waan kuu yeeliyaa waad isoo raacaysa ayay ku leedahay ninkii ay ku leedahay soo bax fadlan hilmaam in aad furto calaamada gambaleelka si aad ula socoto muuqaal walba aan soo gelino muuqaalkan laagare sheegare oo asxaabta la wadaag intaas waxay noo tahay dhiirgelin gabadhan meesha ay kasoo tegaysaa ninkan wuu iska fadhiisanayaa mar labaad ayay soo laabanaysaa waxay haddana ku leedahay ninkii kale ay ku leedahay soo bax oo ninkan meeshii ayuu weli iska fadhiyaa wax asiga u yeelaya ma jirto gabadhii way ka aamusaysaa way ka tegaysaa ninkan wuxuu dareemayaa asiga wixii loo wicilaayay asiga inuu yahay naafo sidaas darteed ayaa aniga leewacan ayuu ku leeyahay ninkan fiilkiisa ayuu isku boorjeenayaa gabadhii ayaa kasoo bixaysa meesha markaas ay ku leeyahay maxaa dhacay marwo maanta o dhan san halkan u fadhiyo waa daali maxaa dhacay maanta wareysi leegama qaadaya miyaa aniga halkan waxaan u imaaday in wareysi leega qaado gabadhan waxay ku leedahay waqtigii ayaa dhammaaday beri waa inaa imaada beri ayaan wareysi lagaa qaadaya wuxuu leeyahay maanta o dhan ayaan halkan fadhiyey waqtiga ayaad iga dhumiseen maxaa dhacay haddana beri imaam maxay tahay ayuu ku leeyahay gabadhan waxay ku leedahay waan kuu sheegay beri waa inaa soo laabataa gabadhan meesha ayay ka tegaysaa asigoo nii jabaya wuxuu damcayaa in oo meesha oo ka tago asigoo raba inuu meesha ka tago ayaa waxaa soo bixayso madaxa shirkadda taleefon ku hadlayso oo dhigayso soo niima sheegin in aad dhammaysiin howshan baaswirka mar hore ayay inaad shaqadiisa aad qabataan ninkan hadalkii ayuu maqli wuxuuna soo aaday marwada xaggeeda marwadan taleefonka ayay jaraysaa waxay damcaysaa in ay gasho gudaha isaga ayaa ku dhahay marwa iga raali noqo wuxuu leeyahay howshaas hadda aad sheegaysa aniga waan qaban karaa waxay u sheegaysaa shaqadan inay aad u culus tahay ay muddo bul ay ku qaban waayeen shaqaalaheeda waxay ku leedahay sidee baad adigu ku qaban kartaa adiga hal gacan keliya ayaad leedahay wuxuu leeyahay taasi dhib malaho waan qaban karaa ayuu ku leeyahay way soo kaxeenaysaa xafiiskeeda ayay keenaysaa laabtoobka ayay u dhiibaysaa ninkan isla marka howsha ayuu bilaabaya marwadan waxay fiirinaysaa ninkani qaabka oo maanta u hagaaji doono baaswirkii ay hagaaji waayeen qaalaha ka shaqeeya shirkadda baaswirkii ayuu isla markana habeenaya marwad way la yaabaysaa markaas ayay ku leedahay adiga halkan maxaad ka soo doontay asiga uu aaminsan yahay marwadana waxay la yaaban tahay sida fudud ee ugu qabtay baaswirka ay qaban waayeen shaqaalaha muddo bil ah ayay la yaaban tahay markaas ayuu u sheegaya inuu halkan asiga shaqo kasoo doontay oo cabaarna banaanka u joogay gabadha baragtikoolkan macnaha gudaha usoo gudbi waayay wuxuu u sheegayaa inuu yahay engineer software oo halkan u imaaday inuu ka helo shaqo marwada midaas ayay ku xumaanaysaa waxay ku leedahay waxaad isug marwada waxay uga ciisaa gabadha baragtikoolka waxay ku leedahay waa maxay sida qaldan aad kula dhaqantay ninkaani waxay leedahay marwo ma hilmaantay ninkan inuu yahay naafo waxba aan qaban karin marwadii ayaa la hadlaysa waxay ku leedahay ninkan waa nin fiican waxaad idinka qaban waaysan ayuu asiga qabtay kulligiin dhammaantiina waxaad bil aad ku qaban waaysan asiga ayaa qabtay waa nin howlkar ayay ku leedahay waxay leedahay adiga saacan ka bilaawda shaqada waa lagaa celinayaa ninkii ayaa dhahay marwa sidaas aad samaynan gabadhan si qaldan ayay wax u fahamtay maadaama aniga aan ahay naafo haddan shaqada ka xiran ayuu ku leeyahay wuxuu ku leeyahay waayahay ninkan madaxiis ayaa shaqadan markii ugu soo laabatay shaqadaada ilaas ayaa ku leedahay midda maanta aad samaysay dib haddii aad ugu laabatan waxaad ogaanaysaa mar dambe in lagu soo celin shaqada ee lagaa racdeenaya shaqada meesha ayna kasoo tegaysaa gabadha